kadib markii ay wasaaradda awqaafta iyo arrimaha diinta xukuumadda federaalka Soomaaliya la tashiyo badan oo joogto ah la sameysay culimada Soomaaliyeed kadib markii ay dawladda soo rogtay bandow habeenkii ah oo ka bilaabanayo 1 Ramadaan 1441 saacada u dhaxayso 7 fiidnimo kuna eg 5 subaxnimo subaxii kadib markii ay dhaqaatiirta si joogto ah ugu tala bixiyeen in dadku joogaan guryahooda cudurka oo halisa dartii kadib markii la xaqiijiyay in dad aad u badan ay xanuunsan yihiin loona badinayo inuu cudurka safmareenka sabab u yahay kadib markii la ogaaday in dhimashadii maalmahan aad u sii badanayso kadib markay diinta islaamka adkaysay ahmiyadda ay leedahay ilaalinta nafta xifdul nafs kadib markii maanta oo ay taariikhdu tahay 1 Ramadaan 1441 kuna beegan 24 Abriil 2020 kulan isugu yimaadeen mas'uuliyiinta wasaaradda iyo culimada islana gorfeeyeen xaaladda cudurka iyo sida muxuu ahaaye laga yeeli lahaa waxyaabaha maanta soo kordhay iyo awaamirta dawladda waxa ka soo baxay shirkan warmurtiyeedkan in dadka ay u hoggaansamaan amarka dawladda ka soo baxay ee ku saabsan bandowga iyo dhammaan awaamirta dawladda qodobka labaad in dadku soconin laga bilaabo 7 fiidnimo ilaa 5 subaxnimo guryahoodana joogaan kuna tukadaan salaada cishaha iyo taraawiixda guryahooda maadaama xilligaas uu ku soo aadayo xilli bandow waxa ganacsatada loogu baaqay in gargaarka dadka la badiyo qodobka shanaad culimada waxaa lagu booriyay inay sii joogteeyaan wacyigelinta bulshada iyo dhiirigelinta taakulaynta dadka danyarta ah in ramadaanka la badiyo ducada iyo quraan akhriska allana loo noqdo Allah subhanahu wa ta'ala wuxuu leeyahay watuubu ila Allahi jamiican ayyuhal mu'minuuna la'allakum tuflixuun Allah naga aqbal cibaadada ummadana ka badbaadiyo cudurka safmareenka ee COVID-19 iyo dib walba oo wadanka haysto wabillahi tawfiiq